Tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo fashilmay kadib markii ciyaartoyda Koonfur Galbeed iyo Hansafaren magaalada Baydhabo ciyaartoydii ay sheegeen intii go'aansho marna la bedeli doono dib dambena oo ku qayb gali doona tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Calanka KGS way bahayay kan ka badan oo la kala reeyo garoonka Tirwin Yakubahi oo tusaale mudanaya tartanka maamul goboleedyada. Wayba tilmaamahayeen nabadda iyo isdhexgalka shiimada taageerayaasha tirada badan oo ka sifooban xishoodka iyo akhlaaqda ma aan la dhaqan si suurad leh. Waybana la kulmeen walyoon aqbalo korno kadib markii dhibaatooyin la jeesaday ciyaartoydii. Godobyada tirsada hayaan KGS dhibka deeri baxda ciyaaro yaknagati urka taala. Dhibaatooyin ya deertii lama xillo oo shal duban oo ciyaaryahanadu ku qayb galayeen tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo wadadeen calanka Koonfur Galbeed. Waybana sheegeen in aqbalo korno wal ku baxsan banooniga markii la weeraray baska Koonfur Galbeed. Mas'uuliyiin badan yaa iska dayay inay arrinta hal an helaan inka dambeyn walwalba burburi. Waybana sheegeen inta tartan kale oo caasimada la qowdow iyo ku qayb galaan ilaa uu ku martigeliyay maamul kale. Hiraabtan wayba ka nagadana magaaladiyo xisaabtamay ku saaro kora inay la hayeen 3 dhibood waana hirsinay hal kulan oo wajahalayeen Hirshabelle. Dhibkiisin Sindeeri wayba ko lahawe isku dareenyana hadii ayna baxda isboortiska waybana siin lana guuleysada oo go'aankin ka adkaysada.